dagaal xoogan oo aan waxba la isula harin sidoo kalena jilbaha la isku aastay ayaa hadda waxa uu ka socdaa deegaanka Hamaduur ee magaalada Qaayib ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. dagaalkan oo daryanka hubka culus iyo sidoo kale rasaasta ay isu adeegsanayaan labada dhinac laga maqlaya meel fog sidoo kale dadka deegaanka ay u adkeysan kari waayeen ayaa weli waxa uu ka socdaa magaalada Hamaduur ee hoos tagta degmadaasi Qaayib ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. Hamaduur ayaa ururka Al-Shabaab waxa ay ka soo weerareen dhowr jiha meel kasta oo wada oo Hamaduur ka baxdana ururka Al-Shabaab ayaa saaka waxa ay ka soo qaadeen weerar dhowr jiha taas oo amba wareer ku riday ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku sugnaa degmadaasi Hamaduur. waxa ay ugu dambeyn bilaabeen ururka Al-Shabaab inay gudaha u galaan dagaalkana ay ku dilaan dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa xeradaasi ku taala deegaanka Hamaduur ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. hase ahaatee Al-Shabaab maxay la kulmeen iska caabin culus iyo sidoo kale daryanka hubka culus oo ay dadka deegaanka ku adkeysan kari waayeen ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka Hamaduur oo dagaal culus uu ka socdo ay ururka Al-Shabaab kala kulmeen iska caabin kulul iyo sidoo kale in ay ka hortagaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee la dagaalanka ururka Al-Shabaab u joogay Hamaduur. ugu dambeyn waxa weli dagaalka uu socdaa oo Hamaduur maysa la wareegin ururka Al-Shabaab hase ahaatee dagaalka culus ee ay doonayeen inay ku galaan ayaa wuxuu ahaa mid culus iyo qorshe culus oo ay kala hayeen in Hamaduur ay gacanta ku dhigaan tiro badan ay oo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliyeed goobta ay ku laayaan hase ahaatee taas maysan u suuro garin oo waxa jilbaha u aastay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan Hamaduur. niyad weyn ay ku noqotay qaabka ay ururka Al-Shabaab u rabeen in deegaankaasi uu ka dhaco sidii coos weyn camal in ay ciidamada qaranka Soomaaliyeed baaba ka dhigaan una daarantii ugu dareen ay u dhigaan ay xalay ku soo toosteen. hase ahaatee waxa beenteeyay sidoo kalena warka waa been dhahay ee jilbaha u aastay sidoo kalena tii ugu darneed ku dhigay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee ku sugnaa Hamaduur halkaas ay ururka Al-Shabaab ka gudbi waayeen kuna adkaatay inay gudaha u galaan deegaanka Hamaduur. si kastaba ha ahaatee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay ka socday howlgal qorsheysan iyo gulaf colaadeed oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya ururka Al-Shabaab ay doonaysay inay ugu saarto deegaanada ku haysan gacanta ururka Al-Shabaab dawladda oo kaashanaysa ciidamada macawisleyda ee deegaanka iyo sidoo kale taraawiishta Galmudug ayaa waxa ay beerka u dhigatay mar kale inay deegaanadaasi gabi ahaanba gacanta kala wareegto dagaal culusna ay la gashay ururka Al-Shabaab ee ku sugan Galguduud sidoo kalena ka taliyo deegaano qaar 10 sano oo aan weligood dawladda gacanteeda soo galin. degmada ugu weyn ee Ceelbuur ayaa kamid ah degmooyinka ay dawladda doonaysa qorshahana ugu jiro in maalmaha soo socdo ay kaabiga geliso sidoo kalena ay gabi ahaanba la wareegto deegaanadaasi degmooyinka Ceelbuur iyo degmada Ceelbuur iyadoo ugu dambeyn ay dawladda doonaysa in Ceelbuur ay gacanta kala wareegto ururka Al-Shabaab. Ceelbuur waa degmo sidoo kalena waxa ay dhowr iyo 10 sano gacanta ugu jirta ururka Al-Shabaab iyadoo ugu dambeyn halkaasi laga saaray ay doonaysa in laga saaro dawladda federaalka Soomaaliya degmada Ceelbuur. si kastaba haatee gobolka Galguduud bartamaha Soomaaliya ayaa mar kale waxa uu wajahayaa gulaf colaadeed oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kaas oo la doonaya in gacanta ay dawladda federaalka Soomaaliya ku dhigto deegaano badan oo ururka Al-Shabaab gacantooda ku jira ugu dambeyn ay dawladda halkaasi ka taagto calanka iyo sidoo kale dawladnimada halkaasi ay dadkaasi ku naaloodaan sidoo kalena ay ka tariso dawladda federaalka Soomaaliya. hase ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay soo qaadayaan dagaalo culus sidoo kale waxa ay beegsanayaan deegaano iyo sidoo kale xerooyin ciidan oo ay ciidamada dawladda ay ku macawisleyda iyo daraawiishta Galmudug ay ugu sugan yihiin gobolka Galguduud halkaas oo ay doonayaan in ay gulaf colaadeed ka dhaqangeliyaan sidoo kalena ay gabi ahaanba deegaanada ku xeeran ee ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ay ugu soo dhigaan gacanta kana qabsadaan. hase ahaatee Al-Shabaab ayaa mararka qaar waxa ay sameeyaan weerar gaadma oo ay habeenkii ku galaan ama aroortii sida hadda Hamaduur oo kale in ay ku galaan dhowr jiha oo ay ka qabsadaan deegaankaasi ay muddana ku sugnaadaan iyadoo halkaasina marka dambe ay dhowr duqeymo ay dawladda geysata ugu saarto deegaanadaas. hase ahaatee galbi ahaanba Galguduud oo wajahaya xaalad colaad abaar iyo sidoo kale ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug macawisleyda oo doonaya mar kale in ay ururka Al-Shabaab gabi ahaanba kala wareegaan deegaanada ayaa mar kale waxa ay dadka deegaankaasi mutaysteen qax iyo sidoo kale in ay ka barakacaan deegaanadoodii oo ay doonayeen inay ku noolaadaan iyagoo ka cabsanaya in lagu barbar dagaalamo gabi ahaana ururka Al-Shabaab laga saaro ay saameyso duqeymahaasi iyo sidoo kale weerarkaasi iyo sidoo kale dagaalka ay labada dhinacba isweedeersanayaan. daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqato
fadlan waxaan ka cabsanayaa inaad janaalka subscribe saartid muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsantahay